dawladnimada waa mahadsantii mudane wasiir intaan ka bixin wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaashaandhigga ahayd adigoo wadanka ka maqnaa xilka laga qaaday warar kala duwan jiray oo ah in dawladda iyo adiga khilaaf idiin soo kala dhex jiray xilka qaadistaas iyo faahfaahin ka wan bulshada Soomaaliyeed aniga waxaan ka mid ahay dadka aad u aaminsan sharciga waxaan aaminsanahay daraadna xilkaas awood kuma aan keenin oo nin qori wata maanan ahayn ra'iisul wasaaraha ii gartay ayadoo waxa weeyaan madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale guddoonka baarlamaanka ay runtii qayb ka ahaayeen ayaan xilkii ku qabtay waana xaq dastuuri ah magacaawista sidoo kale xilka qaadistana waa xaq dastuuri ah oo ra'iisul wasaaruhu leeyahay markuu arko inuu qofka xilka ka qaado marka waxaan u arkaa system dawladeed inaan ku dhex shaqeynayno iyo shuruucda dalka u yaalo sida daraadba xaq ay ugu heed inuu ii magacaabo maantana inay xaq u tahay inuu xilka waxa way iga qaado laga yaabo markii lagu magacaabayo si lagaga tashto kale magacaawistana lama tashto xilka qaadisana lama tashto effortaas soo baxda effortaas inaan u hoggaansanaan ku qasbanahay waa sharciga dalka marka aragto marka warqadii oo ku qanacda filan aad iyo aad u qanaxa bulshada iyo dawladda iyo sida aad nabadda iyo waraarujinta aaga shaqeynaysaan marka hore waa idinkaga mahadcelinayaa dhammaan saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee xorta ah qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay maanta kala fadhigii toddobaad ayaa furmay wuxuuna ku furmay jawi degan waxaana meesha madaxweynaha uu ka jeediyey khudbad runtii aad u qiimo badan oo taariikhi ah khudbadaasoo ku dhisneyd odaytanimo khudbadaasoo ku dhisneyd nabadoonnimo khudbadaasoo ku dhisneyd waaqic ama realitiga maanta waxa weeyaan jira khudbadaasoo ka hadlaysay waxqabadka dawladda inta ay jirtay dhammaan hay-adaheeda kala duwan oo aan ahayn wax theory ah ama aragti ah balse baraatika ah qaarkoodna de statistics ahaan waxa weeye madaxweynaha uu soo bandhigay waxay ahayd khudbad goobaysan oo articulated ah oo qaybaha gudaha iyo xiriirada internationalkaba waxa weeye taabanaysay dib u heshiisiinta horumarinta dhaqaalaha iyo amniga iyo siyaasadda taabanaysay iyo dadiilada shacabka waxa weeyaan iyo siduu shacabka rajaynayo taabanaysay tusaalahan haddaan tusaale u soo qaadno madaxweynaha waxyaabaha arrimaha gudaha uu ka hadlay ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrinta amniga iyo horumarada waxa weeyaan la xaqiijiyey oo idinkaba aad runtii indhihiina ku aragtaan muqdisho maanta xaalkay ay ahaan jirtay iyo maanta siday tahay ee quruxda badan ciidamada qalabka sida sidoo kale in waxa weeyaan qaab casriyeysan ay u shaqeynayaan gaar ahaan ciidamada badda ciidamada lugtana weli ay ku socoto dib u dhiska hooshoodiina waxa weeyaan ay wataan aan rajaynayno mar dhow inaad arki doontaan waxaad ku faraxdaan oo dalka intiisa kale laga xureeyo kooxaha argagixisada wuxuu kaloo madaxweynaha ka hadlay dhanka siyaasadda gudaha gaar ahaan dib u heshiisiinta iyo wadahadallada mar kastaba madaxweynaha wuxuu u furnaa ama uu furan yahay wadahadal in lala galo cid kastoo waxa weeyaan aragti ka duwan aragtida dawladda qabta ama xukuumadda qabta inuu la fadhiisto oo 12 kulan oo madashii uu la galay ayuu madaxweynaha sheegay sidoo kale walaalaha mucaaradka ah ee samata bixintana in waxa weeyaan wadahadal uu la galay siyaasiyiin weynna runtii uu heshiis la galay oo qodobo qaar oo runtii baarlamaanka uu ansixiyay oo aad u adkeed in laga tanaasulo uu ka tanaasulay oo baarlamaanka laga rabo inuu qodobadaasi wax ka bedelo qaar ka dhimanna madaxweynaha wuxuu sheegay de inaanan la kala taginoo wadahadalka uu furan yahay qof kastana waxa weeyaan uu raadi doono marka taasi waxay xaqiijinaysaa in ay muhiim tahay Soomaalida dhanka kalena inay iyagana ogaadaan inay mas'uuliin yihiin isla markaana ay la yimaadaan tanaasul dhankooda uusan tanaasulka dhinac noqon midda labaad ee arrimaha internationalka ah ama xiriirada caalamiga ah sideedaba waxay ku dhisan tahay isqancin xaalado adaga la soo maray oo ay ugu dambeysay arrintii Ethiopia oo heshiis laga gaaray sidoo kale isku dheelitirnaanta quwadaha dunida oo cid kastaba muxuu ahaa waxa weeyaan ay Soomaaliya maanta halka faragelinta shisheeye ay aad ugu badneed maanta ay kaalin ka qaadanayso inay iyaga door dhaxdhaxaadineed ay waxa weeyaan qaadan karto isla markaana waxa weeyaan oo u taagan tahay taasina waa guul labadaas qodob ee dadaalada siyaasadeed ee gudaha iyo diblomaasiyadda dibadeed ee dawladaha caalamka oo isku jira waxay xaqiijinayaan sloganka ah Soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah qodobka kale ee muhiimka waxa weeyaan oo idinkana loo baahan yahay inaad kaalintiina ka qaadataan arinta doorashada waxa soo tijaawiseen nabadoon waxa soo tijaawiseen ergo natiijadeedina waad aragteen
maanta waxaa la rabaa in daa'irada ama sirkalka la waasiciyo shacabka xuquuqdooda siyaasiga waxa weeyaan la siiyo iyaga ay doortaan qofkay markaa iyaga ay ku qanacsan yihiin iyagoo dantooda u codaynayo borogaraam ee aanan codaynaynin shakhsi aanan codaynaynin iyadoo nidaamka xisbiga waxa weeyaan loo raacayo taasoo runtii ah in laga xuroobo caqliyadda qabaliyadda kow labo dawladaha casriga ahna kuma shaqeeyaan qabiil iyo nabadoon waa wax laga soo gudbay iyo ergo waxa weeyaan dunida ay ku shaqeyso waxa waa dimuqraadiyadaas oo dunida la qaatay oo in la waasiciyo ka qaybgalka siyaasadeed ee bulshada marka guud ahaan waxaan leeyahay gaar ahaan arinta muqdisho shacabka waxay si toos ah u cadeeyeen rabitaankooda ku saabsan in doorasho qof iyo cod ah waxa weeyaan ay dhacdo marka waxaan rabnaa inaad kaalintiina qaadataan haddaad saxaafadii tihiin shacabka aad ku jihaysaan dhankaas doorashada qof iyo codka ah shacabka aad gudbisaan tilmaamaha wanaagsan aadna ku hagtaan waddada dawladnimada qaybna ay ka noqdaan amniga iyo horsami socodka